أحمد متان. ماشي مقعد ويديورتي. بسم الله ما أنت واحد جونا قاف كرر شكر الشيخ رحمة أحمد متان. كوني على الدبيدة دول كانوا حقها جرى دول دخلتويا ورا الشيخ اللي يهين أنا كان وحنا هذا راشي ما أنت الله صعودي عباشده waxay ku saabsan tahay ku socota dadkan waa dad la xoogay loo awood sheegtay 2015 ayaa dhulkan laga dhigtay qabooro waxaana safi oo sharci ahayn loo soo maray dad muslim aan nahay dadka muslimkana meesha salaada ku dukanayso haddii xoog ah ku qaadatay waajibkaas kama dhicin oo culimada qabaan qof muslim dhulka lagu duugay oo sharci ahayn lagu duugana oo dadka lahayd iyo adeeraashii oo loo soo dacwooday dacwo ka yihiin waxa u maleynayaa meeshaas inay dhibaato ka jirto dadka dhulka iskale waxay yiraahdeen shirkadda Hormuud haddii dadka ida meydadka lacag ka qaadatay ida xalaashatay tiray dhulkaana iskale sifadii dadka muslimiinta lacagtooda ugu qaadatay dhulkan ay lahayn meydadka u gilisay waxa looga baahan yahay jawaab dawladda federaalka iyo degmadan ee dhulkan ku yaalo oo degmada Rataweyne ah waxa ka rabnaa inay jawaab ka baxshaan dadka waa dad masaakiina 2015 wadanka xaaladiisa waa la ogaay wuxuu ahay xoog la isku sheeganayay dadka xoog adeegsaday dadka way sheegan aniga waxa maanta marqaati ka nahay qabuurihi way banaan yihiin hadda muqdisho tag qabuuraha muqdisho tagta saf waa qabuuraha kan way banaan yihiin waxa fahmi kartaa marka inuu dhul boob u yahay salaad yar meel ku dukatan xoog ku qaadatan lagama aqbal culimada qabto dad muslimiin oo konta kuna qofood ka badan inaad dhul tiraad ana lacag ka qaadanay meeshan gasho waajibkaas waxba ka qaldan ummad Soomaali hadda aniga u noo malaysiin ana qaldanay oo dadka reer shukr iyo adeeraashii qaldiin u malaysiin waxa ka rabnaa dadka shalay lacagaha idii ka qaatay oo idii dan sheegto idii dhulka anaga iskale warqadihii shalay u geesta anigana hanuula yimaadaan adeeryaalaanahay dhulkaas sifadii ayinka dadka meedadka ku galsheen ee ku yeesheen milkidaas laga rabaa hadii dadka ay dulmayihiin adeera joogo dacwad adeera soo gaartay waxaan rabnaa marka adeeraasha iyo dadka dhulka iska oo reer shukr sheekh Axmed Mataan ah waxa laga rabaa wixii qalad waa laga celinayaa ku raacamayno reer Hormuud shirkadda Hormuud waxa ka rabnaa wixii shalay oo nin u sheegto yiri ana mas'uulana waxa laga rabaa sifado asu mas'uul ku noqday warqado uu ku gatay haddii jirto dadka la isma dacweeye dad muslim ehelaanahay shirkaday ummadan waa u shaqaysaa aqradooda ha ka dhuminin dadka ha fasaadinin culumada kula shaqaysa aqoonyahana kula shaqeeyo dadka ha dhicina dad masaakiin oo muslim oo culumada oo shiiqaqa dhulka ku jiraan ha fasaadinina salaad meesha ku dukaysay dood ka taagata oo xoog ku qaadatay nin muslim meel ku dugay iyo hooyo muslim meel ku dugan taane oo dacwo ka daba timaada adduunyada waa wuxun tahay وبلا توفيق